kulankan oo ay wada qaateen mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir hay'ad ka shaqeysa howlaha caafimaadka ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano baag oo fadhigeedu yahay dalka Sacuudi Carabiya iyo kan isbitaalka Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay sida loo horumari karo howlaha caafimaadka ee isbitaalka oo uu hayo bulshada Soomaaliyeed waxaana maamulka isbitaalka Daynile lagu wareejiyay hay'adda baag oo horumarin ku sameyn doonta isbitaalka Daynile kadib markii isbitaalkaas ay iskaga baxday hay'addii MSF oo muddo maamuli jirtay kulanka kadib ayaa mas'uuliyiintii ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo kan Daynile waxa ay u kurgaleen sidoo u shaqeeyo isbitaalka Daynile iyagoona kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalkaas oo xilligaas ay jiifeen bukaano waxaana warbixino ku aadan sidoo u shaqeeyo isbitaalka ay ka dhageysteen maamulka isbitaalka Daynile ee magaalada Muqdisho Dr. Axmed Aweys Axmed oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda baag oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in hay'addu ay ugu horeen si gaar ah ugu shaqeyn doonto horumarinta qaybta hooyada iyo dhalaanka ee isbitaalka Daynile horta dabcan waxaan lagu wareejiyay isbitaal fiican oo aad alaabtiisu dhameystiran tahay shaqaalooda ay tababaran yihiin wax kasta ay fiican yihiin kaliya waxay u baahnayeen in la kaalmeeyo la socodsiiyo shaqada u socoto hay'adda hadda waxay la dhowr phase noqon doontaa phase ugu horeeya hay'adda waxay la wareegaysaa waxay la wareegaysaa qaybta hooyada iyo dhalaanka iyo la wareegaysaa hadda umulisa loo sameeyaa qaliimada u baahan si lacag la'aan lagu sameeyaa daaweyn lacag la'aan la siiyaa waa hooyada iyo dhalaanka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala bisha soo socoto bilowgeeda in dhaqaatiir kale noo imaadaan qaliimada ay nuuc burooyinka eernooyinka hooyooyinka isku furmay oo kaadida iyo saxarada aan cisho kan laftirkooda in qaliimo loo sameeyo Ciise Maxamuud Guure gudoomiyaha degmada Daynile oo isna kulanka ka hadlay ayaa ugu mahad celiyay maamulka isbitaalka Daynile sida ugu adeegayo bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkaan mahad iyo bogaadin uga soo jeediyo boorka isbitaalka degmada Daynile iyagu u dhabar adeegay intii ay ka maqneed hay'addii MSF ee halka sana ahayd iyagu soo gaarsiiyay intaan isbitaalkan iyagoo xafiday agabkiisa iyagoo maxaa la yiraahdaa kaalmadii uu bulshada u haajiray oo firiiga ahayd isku dayay inay jeebkooda ka socodsiiyaan amba dad kale ay uga soo qaadaan contribution intaas gacanta ku hayo waxaan rabaa inaan mahad iyo bogaadin u soo jeediyo mudane Maxamed Aadan Guuleed Caanageel gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda oo ugu dambeyntii kulankaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay hay'adda lagu wareejiyay maamulka isbitaalkaas in ay ka shaqeyso horumarinta isbitaalka Daynile hadda kuwad waxaan jeedinayaa hay'adda baag waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaalidu mahmaahay leedahay la yiraahdo dayr xun hadii la dego dadka waxa ugu fiican qofka nafta iyo gobonimada soo cidajiya aniga anoo wariyaa ayaan muddo dalkan joogay waxaan marqaati kacaya oo Soomaalidana dhageysanayso dhan uga marqaati kacaya in degmadan maamulkan Daynile iyo degmadaaniba ay ayadoo aan ajaanibta cid marti gali kartaan la arag ay MSF marti galiyeen kuna guuleysteen marka waxaan leeyahay maamul gobol waa idin diyaar dhinaca kale kulan looga hadlayay adkeynta amniga degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho isla markaana ay wada qaateen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kan degmada warta nabadda saraakiisha ciidamada amniga ee degmadaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho kulanka ayaa muddadii u socday waxaa si weyn looga hadlay sugidda amniga degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho maamulka degmada warta nabadda ayaa muddadii kulankaasi u socday taliyaha saldhigga ciidanka booliiska ee degmada warta nabadda ku wareejiyay qalab xafiisyad lagu talagalay in lagu horumariyo howlaha shaqada ee saldhigga degmadaasi sidoo kale gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay howlo kormeer ah ku tageen iskuul sare ee 15 May ee magaalada Muqdisho oo ay ka socotay howlo dib loogu dayactirayo iskuulkaas ujeedada kormeerka ayaa ahayd sidee u ogaan lahaayeen mas'uuliyiintan ka tirsan maamulka gobolka Banaadir sida u socoto dib u dayactirka iskuul sare ee 15 May ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada warta nabadda ayaa si Nuur Ciise oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay sida u socoto howlaha lagu dayactirayo iskuul sare ee 15 May muddo 2 bil ka hor ayaa shaqadan bilaabatay dhaqdhaqaaqiisa gobolka Banaadir ayaa xaqeedna la joogeen maadaama shaqadii socotay waxay u baahan tahay mar shaqada in la soo kormeero marka waxay kamid tahay shaqooyinkii mashaariicda socotay degmada kamid ah
ayaa mashaariicda ugu weyn ayuu xaqiiqdii ka mid yahay gaar ahaan dowladda Norway wasaaradda arrimaha dibadda ayaa mashruucan fankeeda bixinayso waxayna u soo marsiisay hay'adda NRC oo ah Norwegian Refugee Council ee samafal ah sidaas ayuu mashruucan ugu soo gaaray haddana u jeedin xaqiiqdii shaqada meesha ay marayso gabagabayna ku dhowdahay maanta rinji inay marayso laba rafiini waxa laga soo gudbay mar waxaan aaminsan markaan waa maraayidihii iyo eedihii kulligood qaarkood hadda diyaar ay yihiin marka insha Allah xariijada mar dhow muddo bil kadib insha Allah bisha 12aad December sanadkan dhaxaysa insha Allah in shaqadan soo dhamaato Maxamed Xasan Cali idaacadda iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho